harun runtii shalay waa kulay horta baarlamaanku waa waajibaadkiisa xukuumadda inay ansixiyaan iyo xukuumadka qaada inay la xisaabtamaan intaas oo u leeyihiin laakiin habkii shalay hadda loo maray ka qaadista waxaa moodaa inay ahayd hab aan raacsanayn xeer hoosaadka baarlamaanka oo ah xukuumadda marka hore mooshinna laga keeno la siiyo fursad ee iyadu maaragtay isku difaacdo waxyaabaha lagu soo eedeeyey kadibna codayn la geliyo markii adigu xildhibaanadii soo eedeeyey iyaguna hadlaan markaa in codayn la geliyo oo maaragtay codayntaasi ay xukuumadda ama ku dhacdo ama ay ku keesho kalsooni ay kusii wado howleeda marka runtii xeer hoosaadka lama sugaynin baarlamaanku tirada waa laga yaabaa inay haysteen ay uga qaadi kareen sababay uga cabsadaan in mooshin la keeno anigu ilmaha inay meesha jirteen marka waxay ahayd laakiin xeer hoosaadkaas ina sugay sababtoo ah sideedaba annaga haddii waxyaabaha shuruucda aan ku heshiino inay nahagaan oo aan isku qadarin inay yihiin shuruucdii markaasi aan isku qadaqayn haddaan la ixtiraamin oo aanan dee kalsoonidii dadku institutionska dowladda ku qabaan way yaraanaysaa maxay kula tahay sababta ay qaab furan uga doodi waayeen mooshin uga keeni waayeen ra-iisul wasaaraha codkana loogu qaadi waayo qaab furan maxay kula tahay adiga sababtaas waxaa moodaa hadda sida anagu kule aan ka arkay hadda mediada iyo eedeyn oo labada dhinacba inay socoto laleeyahay wasiiraadiiyo marka saasaa maaragtay codkii horey looga galay marka hore laakiin ajento waxa in laga doodo wax kasta waxa dhacaan mas-uuliyadeeda runtii baarlamaanka qaadaya sababtoo ah waxaa la rabay inay xeerka sida uu dhigan yahay ay maraan laga keeno waxyaabaha lagu qabsaday xukuumadda sax ma ahayn oydu waa meesheeda oo runtii waxyaabaha laga gaabiyo oo dhan yaa eedeed iska leh waa meel kaleeto laakiin habka loo raacay xeer hoosaadka baarlamaankii inaan la sugeyn runtii xeer jabin bay ahayd wixii adigu dhacay shalay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre labaduba waxay dhowr jeer ku celceliyeen islamarkaana waxyaabaha ay ku faani jireen marka ay noqoto wada shaqayntooda waxay ahayd inay midaysan yihiin ayna ka duwanaanayaan qaab wada shaqayntii madaxweyneyaashii iyo ra-isul wasaarayaashii iyaga ka horreeyey laakiin taasi shalay bay dhammaatay maxay kula tahay taas maxaad ka akhrisatay wallaahi horta dee markii horeba ayaga waxaa ka keenay inay saas dhaxaan waxay la tahay inaysan dee khibrad u lahayn dowladnimadu waxa ay tahay moogtahay madaxweyne iyo ra-isul wasaare waa run waa inay wada shaqeeyaan laakiin haddana horta annaga foundationka siyaasadeed ee dalkeena wax ka qaldinaya sababtoo ah ra-isul wasaare waxay ahayd majority inuu keeno majorityna ka qaado waxaa moodaa dalka ra-isul wasaaraha parliamentary systemka ra-isul wasaaraha ugu muhiimsanaa inuu dalka noqdo qofka siyaasadda haga haddana annaga dhaqankeena parliamentary weeye laakiin haddana waxaa moodaa foundationka siyaasadeed laga halisiiyeen waa imaanaysaa siyaasadda in lagu kala aragti doonaado madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha meelo qaarkood haddii baarlamaankana markaasoo kale waxaa loogu talagalay de haddii fakarka lagu kala duwaan inuu isaga arrintu galo uu saxo qofka markaas uu isleeyahay aragtida dalka danbay u tahay marka waxay la tahay dee tii wada jooggaas iyo wixii ballanqaadyadaas kuley hadda waxba kama jiraan waa ka duwanaanaynaa weliba sharci jabinta iyo habka loo maray iyo sida dhaqsada loo qaaday ra-isul wasaare hadda ka hor aysaan soo martay ma jirtaan u malaynayaa adi hadda ka hor way kusoo martay waad iscasishay 2 jeer baad ra-iisul wasaare noqotay waayo aragnimadaas ka hadal bal wax yar horta niu hadee horta waxa yaab leh moogtahay dalkan siyaasadeena waxa weeye mas-uuliyadii dalkana madaxweynaha haya awoodii executivekan ra-isul wasaaraha haya marka waa adiga arrin markasta u baahan madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha inay ilaaliyaan balance siyaasadeed isla markaasna ay runtii ku dadaalaan in hadafka iyo hiigsiga markaas dalka loogu talagalay inay ka wada shaqeeyaan laakiin haddii wax aysan markaas aragti iyo ku kala duwanaadaan waxaa ruun in labada qof uu meesha ka baxo sababtoo ah ma sii socon karo dalkana uma fiicna in isku soo horjeed iyo maaragtay iyo muxuu ahaa ishayn uu kusii shaqeeyo aniga waxaan is leeyahay runtii niyo annaga waxaan u baahanahay dastuurkan dhexdiisa inaan inta ku shaqeyno aan runtii clarity wax la dhaho ama tafsiirno oo fasirno exactly awoodaha ra-isul wasaaraha
iyo wasaaraha waxa awood u leeyahay in madaxweynaha roolkiisa haddaynan constitution ku difaacan gareen de waa un imaanaysaa isqabashadan oo maaragtay markaas sababtoo ah wasaare iyo madaxweyne parliamentary system sidoodina uma dhaqmayno presidential iyo parliamentary system isku jiro kaleetaan annaga hadda u soconnaa marka taas in la saxo oo runtii dastuur ahaan loo saxo anigu waan qabaa taasaana keenaysa hadda wasaaraha la keeni doono muxuu noqonayaa muxuu wax ka bedeli karaa moogta qodob aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan sababta xilka looga qaaday ra-iisul wasaaraha markaan ka hadlayno baarlamaanku qodobo ayay taxeen inuu ku guuldaraystay nidaamka federaaleynta inuu la yimaado hab qeexan oo doorasho qof iyo cod ay ku qabsoomi karta iyo qodobo kale dhinaca kale ee ra-iisul wasaaraha iyo taageerayaashiisa iyagu waxay ku macneeyeen in mowqifkii uu qaatay ra-iisul wasaaraha ee ahayd in muddo kororsi aysan dhicin doorashadana waqtigeeda lagu qabto inay taasi sabab u tahay maxay kula tahay adiga labada dhinac waxaa ka jira sababta waxa weeye horta midatan ah doorashada sideeda horta hoggaan waxaa laga rabaa inuu markasta runta u sheego dadka iyo dalka meesha wax suuroobaya waxaan suuroobay waa sax inaan laga shaqaynin arrintii doorashada dastuurka inaan la dhamaystirin inaanan muxuu ahaa magaceedii maqaamkii banaadir inaan la samaynin waxayna ahayd sideedaba bishaan hadda July baan ku jirnaa July 2019 ugu dambeyn hadday arkeen sharciga doorashada inastan oo registrationskii dadka aan la samaynin in inta baarlamaanka la hortago la dhaho ma socon karto waqtigaas kuma qaban karno doorashada aanu raadinno sidii aniga aan yeelay aan raadinno talo kale ee aan 2021 ugu gudbi karno taana lama samayn laakiin eedda wasaaraha kaligiisa qaadaya arrintaas waa qoshka meesha taagan sababtoo ah baarlamaankana waa joogay madaxweynahana waa joogay waana u wada jeedeen in waqtiga uu socdo wixii loogu talagalayna waqtigeeda inayn lahayn waqtiga registration loogu baahanaya in dadka lagu registareeyo security lagu sameeyo political agreement laga keeno inaysan ku suuroobeynin hal sano gudaheeda marka taas waxay ahayd in runtii si saraaxa ah baarlamaanka ay hor yimaadaan ay ka sheegaan ay yidhaahdaan waqtiga kuma qabsoomayo sidii aniga aan yeelay 2015 July 4 bilood 5 bilood anoo joogaan hortagay waxaa ku eeday ma soconayso waxaan rabaa inaad fasaxiisaan inaad raadino talada kale aan dalka uga saari karno sababtoo ah waxa ii muuqatay Hirshabelle inaan sameynay ahayd in oo galmudug aan sameynay ahayd in aqalka sare aan sameynay ahayd marka intaasoo dhan inaan sameeyay iyo maqaamka banaadir iyo sharciga doorashada iyo waqtigaan haysta isma keenin baarlamaankan hortagay July 2015 kii waxay ahayd ma soconayso waxaa inaa isiisaan kalsoonida aan ku raadin lahaa dalka waana isiiyeen madashaan iyo markaasay ka dhasheen waxaas marka horta laakiin eedda khayra iyo xukuumaddiisa kaliya ma leedahay anigu ma qabo baarlamaanka iyo madaxweynahan waa la qaban sababtoo ah ayaga ruuxooda waxay ahayd arrintan ilaa dalkan dowlad ayaga kulli waa dowlad hal dowlad wey in arrintan waxay ahayd intay ka wada hadlaan ee arkaan ee dhahaan warsee dalka uga saari karnaa waqtigiina waa nagu socdaay markaas ay xal ama benchmarks intay samaystaan ee dhahaan saana wax ku wadaynaa lama dhihin saacadii ugu dambaysaa blamekii oo dhan maaragtay waxaa la saaray wasaarihii dhaqankan oo runtii soomaalida ka jiro hadda annaga muddana na soo waday oo ah wixii fiicanna madaxweynaha leh wixii khasaaro iyo wixii khaldamana wasaaraha leh dhaqankaas wixii inaan ka tallaabsano oo runtii eedda la wada qaado oo muhiim weeye hadda iyo wixii ka dambeeya iyo meesha looga dhaqaaqaya halkan galmudug iyo dhuusamareeb qodobo ayaa ka soo baxay kulan kalena waa loo madlan yahay baarlamaankuna waxay sheegeen inay iyaga u taalo inay go-aan ka gaaraan nidaamka doorashada iyo qaabkii lagu geli lahaa iyo dhammaystirka sharciga doorashada guddiga doorashada iyo baarlamaanka aqalka hoose oo aad moodo dhinac inay waxyaabaha qaarkood ka siman yihiinna iyaguna waxa ay soo jeediyeen tubta la raacayo maxay kula tahay yaa ugu habboon yaa iska leh hadda wixii ka dambeeya yaa iska leh diyaarinta iyo ka wada hadalka qaabka doorashada iyo sidii lagu geli lahaa waa mahadsantahay hadda horta su-aashan waa su-aasha ugu muhiimsan wey hadda meesha tan nin horta sideeda sharciyada lagu sheegayo sharciga ruuxiisa siyaasad ah haddii sharciga uusan siyaasad ahayn maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga iyo 9 qofood inta laga dhigo interpretationka sharciga ama tafsiiraadda sharciga ha loo codeeyo lama dhexin marka
sharciga sideeda waxaa ka muhiimsan stabilityga siyaasadeed maaragtay in la ilaaliyo oo wax heshiis lagu wada yahay la gaaro. hadda xaaladda taagan khatar meel khatar aan marayna sababtoo baarlamaankiina wuxuu leeyahay waxaan ku soconayaa ilaa aan ka gaarsiiyey dalka doorasho qof iyo cod ah waqtigii rabta waxa qaadatay dalka intiisii kaleeto xisbiyadii siyaasadeed dadka siyaasiyiintii kaleeto dowlad goboleedyada waxay leeyihiin may waqtigeediina ku dhacdo waay haddaanan maanta la helin qof dhexaada oo waxaan negotiate gareeyay oo runtii aan laisku keenin labadan aragti aan wax lagu heshin kacay tagaysaa dalka iyo dadkuna waa ku dhibaatoonaya runtii. anigu waxaan qabaa hadda ra'iisul wasaaraha imaanaya habka lagu soo xulayo hadday noqoto hab hal dhinac ah oo aan wadatasha laga samayn oo aan la caddayn awoodaha u yeelanaya iyo waxa la rabo inuu negotiate gareeyo labadan meel dhuusamareeb waxay ka soo baxay iyo baarlamaanka meeshuu taagan yahayna aanan isla fahmin sidii meel dhex loo keeni lahaa runtii waxa aan ku soconnaa waa khatar. waa anigu kolay talada hadda aan madaxweynaha siinayo waxaa weeye inuu consultationka badiyo muxuu ahaa sida lagu soo xulay in la caddeeyo ra'iisul wasaaraha imaanaya awoodaha uu ku yeelanayo miisaanka siyaasadeed iyo sida la rabo inuu u soo tabixiyo dalka. haddii kan waxaan qabaa runtii meel crossroad aan taaganahay khatara waxaa ka imaan kara runtii dib aad u weyn. annagana soomaalina maanta niyadjab kaleeto diyaar uma aha ummadaas waxay rabaan inay wax hore u socoto. waxaan rajaynayaa haddii ilaahay inay maskaxda shaqayso in la odayeeyo in runtii laga dadaalo sidii dalka kan xasilooni u dhici lahayd laisugu keeni lahaa meel loo negotiate gareyn lahaa meel laga aadana la